suldaan maxamed muuse cune oo ka mid ah salaadiinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo TV-ga caalamiga ah Somali Cable ku siinay wareysi qaar mid ka mid ah hoteelada magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka waramay xaaladda waddanku marayo sidoo kalena suldaanku waxa uu ku baaqay shir ay yeelan doonto beesha uu ka soo jeedaa waxaana ka mid ah hadaladiisii beesha garxajis meel kasta ay joogaanba ama ha joogaan dibadda ama gudaha ha joogaan fariintaan idin soo diray waxa weeye maadaama uu galay xaalad cusub maadaama oo ay wixii dalkan aynu lagu heshiiyey sharci ahaa inagoo awalba ogeyn xaaladdiisu halkay ahayd iyo sidii loo afduubay imankana si fiican loo laalay waxaan idiin sheegayaa ama dibad jooga ama guda jooga hadday tahay garxadska ceerigaabo hadduu yahay ka burco hadduu yahay ka oodaweyne hadduu yahay ka berbera hadduu yahay ka hargeysa waa in shir degdega oo lagaga tashanayo danaha reerka iyo danaha waddanka waa in la isugu yimaadaa fariintaasu maanta waxa weeyaan waa fariin culus oo xambaarsan nuxur badan waxaa la yidhi taladu adiga ayaa ku nool ee iyadu kuguma noola shirka guud waxaa ka horeynaya oo aan halkan ka calaaminaya oo ka sheegaya waa in ardaayada garxajis reer waliba gaar u shiraa si degdega reer kasta oo garxajiska ardaayaynu nahay waan isnaqaanaa ardaa kastaaba waa inuu gaarkiisa marka hore u shiro oo shir hoosaad yeesho oo iska soo qaybiyo ciddii matali lahayd ee shirka guud ee reerka u matali lahayd shirkana waxaa looga jeedaa in lagaga baxo xaaladdan lagu jiro imanka wixii inagala gudboonno aynu ka qabsanno waa in taladeenna iyo arrinkeenna aynu ururino waanta waxa weeyaan waxaa xidhan oo jeel garxajis ku jira jeelka garxajiska loo samaystay waxaa ku jira malaayiin macallimiin abwaano suxufiyiin iyo qaar kaloo badan waxaa soo dhami waa cayaaraheenna oo rag waana la xidhaa waana la dilaa marka waxa weeye kama xumin in cid la xidho inaguna waynu xidhi haddii ilahay ka dhigo laakiin insha allahu bilmillaahi kariim hadalkayganu maanta meel kale ma daaranaa waxaan ku alcaaminayaa ama aan ku ogeysinayaa cid kasta shirkaa garxajis in la qaban doono weliba lagu qaban doono gobolka Togdheer ama meesha kale la isla garto marka raiisu yimaado shirkaana waxaa ka horreyn doona shirarka ardaayadu ay yeelanayaan ee gaargaarka ah waa in la qabto shirkaas si degdega maxamed yuusuf cabdilaahi maxamed wardi telefishinka caalamiga ee Somali Cable Burco.